caalamul islaami markii lagu soo duulay waxaa laga dumiyey 3 meelood lagama dumin masaajida lagamana dumin lacagta iyo dhaqaalaha kaliya lagama dumin 3 asaas baa laga weeraray waxaa laga weeraray almuallim almukhlis muallim daacadaho mukhlisaho dadkiisa waxbara baa lala dagaalamay oo meesha laga saaray ilaa ardayga ama qofka dhalinyarada adoo kala ah macallinkii wuxuu dhigayay haybadiisii meesha laga tuuray oo inuu macallinkiisa ka haybaysto ixtiraamo waa la baabi'iyay muddo dheer baana lala dagaalamay haybada macallinka in la lumiyo si muallimul mukhlis qof og inaadan ixtiraamsanayn adoo hor fadhiya adiga ma ku ixtiraamaya ixtiraam almutabadal ma imaanaya wuxuu og yahay markaad hor fadhida inaad ka aaminsan tahay tuug beenaalo ka hadlaya kana aamini kara marka wax wanaagsan ko waxa la inagala dagaalamay bay niri almuallim almukhlis laba waxa la inagala dagaalamay al-umm alwaaciya macallinkeeni waxa laga dhigay mid aan u tababarnayn xataa maadada uu baranayo wixiisuna theory iyo nadari ay yihiin oo aan tadbiiq ama practical rasmi ah samayn karin dabeedna waxa lagu yiri hebel wax ma yaqaan oo hebel wax ma yaqaan oo Soomaalida oo dhan wax ma taqaan baa lagu yiri bal waxa laga dhaadhiciyay muslimka oo dhan wax ma yaqaan goortaad gaal sayn cad aragto isaga u khuduuc rukuuc baa lagu yiri isaga cilmi aakhiraad iyo mid adduunba ka heliyay war waxaasi ma runba waxaad ogaataa adeer cilmigu jinsi ma laha midabna ma laha luqadu gooniyana ma laha cilmigu waa macluumaad waa wax la baratical gareeyo la barto way adoo madowna cilmi waad baran kartaa isagoo cadna cilmi wuu baran karaa cilmigu waa la wadaagaa basharka oo dhan buu ka dhaxeeya jinsiyadu gaar ma jirto yaan waxba laga dhaadhicin jinsiyad baa cilmiga u gaara waxaan leenahay marka waxa la dilay oo kale al-umm alwaaciya hooyo baraarugsan oo soo jeedo ilmaheeda wax wanaagsan ku anqarisa waxa la yiri shaqaysta haweenku ha shaqaysteen guriyaha iskaga soo baxeen haweenku ha xoogsadeen haweenku ha ordeen haweenku siyaasadda ha galeen haweenku ha ordeen haweenku urur ha samaysteen haweenku habeenkii ha shireen maalintii oo dhan ha ordeen yaa dhumaya marka ilmihii ay tababari lahayd hooyadaasi maxay ugu taallaa haday salaada subax baxda salaada cishaayna soo gashay iyadoo daalan jiilkii ay rabayn lahayd yaa rabaynaya cid alla cidii u timaada ha rabaysade haddii la rabo mansacagalaydu ha rabays intaasoo ilmood baan aragnay guri cidlaa lagu xidhay oo looga tagay dabeedna caqliyadoodiiba luntay oo isla hadlay oo maxaan ku dhahdaa ayay maskaxdoodiiba kori weyday ilma yar baa guri lagu xidhay waa looga tagay mas baa u soo galay soo gurigii ku xidhan masku dee wax ma wada cuno kulligiis maskii baa ag maray ilmihii yara markay hooyadii u timid hadalkiiba waa daay juuqba ma dhahayo waa indha ku soo fiirinaya keliya dhakhtar cilmu nafsiga yaqaan oo Faransiiska Paris loogu geeyay wuxuu baaray xaaladihii suuragalka ahaa xuri ilmahan waxa barakshar baa soo fuulay culays waxaan waxba ka qaban karin meel baad ku xidhi jirtay buu yiri meeshii uu ku xidhnaaba wuxuu kala kulmay naxdin ama baqdin xoog badan akhiran waxa la ogaaday guriga inuu masku nool yahayo ilmaha goorta la ka tiinadeeyaba dabcigiisa ay tahay subaxdii inuu baxo galabtii inuu soo hoydo masku labada jeerba ilmaha inuu agmaro ilmihii wuxuu awoodi waayay inuu hadalba soo celiyo hooyadii baa la dhumiyay markii horeba guriga laga saaray al-umm alwaaciya baa looga dhaartay waxa la inooga dhaarto la inagala dagaalamay al-marjiciyya saadiqa nin caalim oo halka fadhiyo oo baahiyaha adduunka iyo kuwa aakhiraadba loola tago wax la weydiiyo lagu kalsoon yahay waa la inooga dhaartay waxa gruubka masaajidka jooga ma aragtay kuwa masaajidka joogay ka soo horjeedaane adiga aabaha kuwaas ku jiraaya kuwa maahe kuwa kale hal la tukanin iskaga carar ma fikrad islaamku qaba quraanku wuxuu leeyahay hays khilaafina bu quraanku ina leeyahay wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قرآنكم كلا تقوا إنه يري ولا تكونوا كالذين اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات كوي انت الدين تودو اتمت كذب اسخلافيها النقونين ذلك إلا اسخلافاي ليست من الخير في شيء إلا اسخلافاي وحوانا قهي تهي مجره